Soomaalida tan iyo markii cagaha loo laabay dowladdii uu majraha u hayay Jenaraal Maxamed Siyaad Barre dibna looga qoomameeyay waxayna dhex maquurteen colaado kala calaamado duwan oo mid walba carcarteedii caynad gaar ah lahayd. Muddadii 25 sano ahayd roobabku waxay da'ayeen iyadoo difaac la isugu jiro. Qoraxda Soomaaliya u dhalataana ma aanan dhici jirin iyadoo aanan dhicin wixii dhici lahaa oo ahaa dagaalo sokeeye, mid siyaasadeed, mid dhul dowladeed la isku haysto, mid aanad qabiil gaadiid la kala dhacayo, mid isbaaro, mid diimeed, mid ganacsato, mid dowlad lagu taageerayo iyo mid qaad ka bilowdo. Maalin walbana waxaa la soo ahaa ummad iswada dilayso aan issalaamin oo kala qaxaya. Maalin walbana waxaa loo sacbatumayay fikradii kooxi keento oo aan la isweydiin halka ay ku dhammaanayso. Aakhirkana waxaa laga haraa oo mid kale looga degtaa iyadoo tii hore laga dhaxlay oo qura dhimasho iyo dhaawac. Wararka hawada laga mariyaana xilligaasi waxay ahaayeen dagaal dhacay, madfac digiri, guri dumay, dhaawac daba yaal, daaduun qaxaya, dad la laayay, diryaan qarax, dilal habaysan, siyaasado isdiidan, afkaaro diineed, dekad xiran, sun la duugay, caalam aan danaynin, ciidamo dalxiis ah, doodo halis ah, dareen cabsi leh, dad kala shakisan, dariiqyo kala xiran, maato dayacan, dacaayado raqiis ah iyo qodobo kale oo maqalka dhagaha u daran. Haddaba haddii laga soo samata baxay wixii rag maalayacni isugu soo dileen ama ay u soo galaafteen dad aan waxba galabsan. Sidoo kale Soomaaliya maalmahan waxaa ku soo batay qaraxyo ismiidaamin ah oo dad badan oo masaakiin ah u taxaabay aakhiro. Marka aad maqasho gaari qaraxay oo qofkii watay keliya ku dhintay, ama ruux meel cidla ah isku qarxiyay, ama mid galaaftay 100 qof oo aan waxba galabsan, waa suurtagal inaad isweydiiso su'aalo badan. Sidoo kale marka aad maqasho dagaal socda oo salka ku haya muran isbaaro, guri dowladeed oo la isku haysto, ruux bajaajla ah oo 1000 shilin loo dilay iyo waa ka shakiyay, ama isku dhac ciidan oo sababa dhimashada in ka badan 20 ruux iyo dhaawaca 40 kale, iyadana waa suurtagal inaad isweydiiso oo maskaxdaada ay ku dagaalamaan su'aalo badan oo ay ka mid tahay waxa dhacay iyo waxa la isku haysto sida ay u kala fog yihiin. Aaway noloshii qiimaha lahayd? Maxaase dadkani inay nabad ku noolaadaan dunida u diiday? Bal u fiirsa tahriibka badda. Waxaa toddobaad walba soo yeeraya Soomaali badan baa badda ku dhimatay. Maalin walbana doomuhu way sii raran yihiin oo waxaa lagu sii daadinayaa biyaha. Weliba waa lagu kala tartamayaa geerida naxdinta leh. Dhanka kale haddii aad maqasho askari dilay wiil bajaajla ah ama askari kala dilay oo maalmo dabadeed maxkamadda la soo taagay in heblaayo hebel kadibna lagu xukumo dil toogasho ah, waxaad isweydiinaysaa bal waxa uu ka faa'iiday falkiisii hore iyo inuu dilkani ka fiican yahay dilalkii hore aan la isku dabagali jirin. Marka la isku soo xeeriyo, inkastoo geeridu xaq tahay, dhimashadan Soomaaliga laga wada caashaqay mar qurana aan la isweydiinaynin lagu dhimanayo waxa ay yihiin. Welina qorigii hebelo badan lagu dilay la sito, la iskuna taagtaagaya si ay dhimashada u sii socoto, iyadoo la ogyahay ruuxii dhintaa in dib ifka ugu soo laabanin. Soo waxa loo wada degdegaya lama oran karo.